qoyska uu ka dhashay ciyaaryahanka ugu wanaagsan Soomaaliya Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi ayaa waxay u soo safreen 95 kiiloomitir si ay farxadda ula qaybsadaan wiilkooda oo dhawaan ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan Soomaaliya. Aabaha dhalay Xasaasi iyo wiilkiisa Atax Cabdinuur Geesi ayaa waxay u soo daawasho tageen ciyaartii dhexmartay kooxaha Horseed iyo Muqdisho City Club iyagoo garoon ku yimid gaariga abaalmarinta u helay wiilkooda. Cabdinuur Geesi ayaa waxa uu nala wadaagay qisooyin hore oo ku saabsan ciyaaryahan Xasaasi iyo sidii ugu soo hanaqaaday magaalada xeebta dheer ee Marka isagoo xilli hore sheegay inuu ogaaday in wiilkiisa maalin uu noqon doono laacib weyn. ujeedadu maadna oo garoonka ciyaarkii oo koobka oo qaaday oo booqasho ciyaarkii oo maad oo soo ciyaaray oo ku guuleystay koobka iyo gaar la siiyay oo aasaaskiisa gaalka Shabeellaha ka soo baxay. Fakti ku wuxuu dheeli jiray Jeenyo waa ka soo tagay Horseeda qaadatay Horseed buu dheelayaa. Hadda kolay oo ku faraxsanahay ciyaarkii koobkaas qaatay oo ku taageersanahay Baroni ana ku soo barbaariyay. Haddana ku faraxsanahay inaa Horseed u dheelo gaalka Shabeellaha hoos deganahay ciyaartooyda qaranka Soomaaliya oo ciyaarayna ninka uu fiican Soomaaliya qaranka uu noqday. dhinaca kale Atax Cabdinuur Geesi oo walaalka ka weyn Xasaasi ayaa sheegay in qoyska dhan ay ku faraxsan yihiin guusha uu gaaray walaalkiisa waxaana uu sheegay in walaalkiisa uu ahaa mid ku wanaagsan ciyaarta kubadda cagta xilligii uu daayaraa. ما شاء الله عاد فرحنا استان تي في ما عنده سنس ولكن هدي في عن ايسيان يا ما عنده ولكن او جول استلعبت ما سومال او في عن عاد فرحنا دينكين waxay soo koob kala ma kale wallahi kale waxaan daawan waqti alle Xasan Cabdinuur Geesi si fiican u booday celebration sameeyay alla celebration sameeyay xaafadan daawada Muqdisho joogay wallahi markii macna kooxeen leejin ana macalin ay asi ciyaartooy badan sidii mudud maada Axmed Sakhir Gaxtaani كله وبيت الله أنا معلن هاي ما بحاول أقول جد إنه هم بيقولون أو كذا سيفي عن أو كواحد هي مركز حاجة كواحد تشتوك بلدك أو قول إن أنت أكتر جد. مركي راي أنا أسكولا ريجر وصير حيرتا سبولون كوديل جري عيارتو في عنو هاجر يرانتي سال شيء جري أنا كان أو مستقبل جاراي أو بنونيس وفي عنتي مت عمرو علبان لها أي شيء ويل كانوا يرانتيسا مركز وبحر البونس وفي أنت عمرو علبان لاعبين أنت مركز كترسية عمرو علبان الله يا أبتيس عباس خلوع عيارتوي وايا كروح كاميرون وديل جري عباس خلوع لا ويلكم حكوية أبتيا ولا شيء دشي ولا عباس عمرو ويل كان ويل خطر وصوب بحدونا خطر ميسن وصوب بحي نلاعب أشياء عمرو علبان الله ندخشيد لا أو جونيو ولا يسوي ماشان ير أو كو مرك حمر سو قال جري دخشيد لا يسوي بنادر يو وها اسكوايستي جونيو اسكوايستي فكتي كو سو قال جري حمر اساسكي سو كو سو شيغا بنادر ايام المين جير بنادر واك سو تاغي وها قادتي جونيو دخشيد عنقه بربار دخشيد اسو جاي وبربرتي عندنا هرسد وماضي هرسد قاعدت هرسد الى هرسد وجوغا habeenkii dhacay xafladda Somali Football Award Cabdinuur Geesi waxa uu ahaa mid safar ku jira waxaana uu ku soo safray magaalada Marka si uu u qayb galo xafladda Somali Football Award hase yeeshee xilli goor dambe xafladda ay socotay ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho waana sababta uusan xafladda ugu qayb galin. marqaatiyaasha Nool Sportska ayaa weli xaqiijinaya in xafladda Somali Football Award ay ahayd xafladii ugu horeysay ee lagu abaalmariyo ciyaartooyda Soomaaliyeed ee kubadda cagta taariikhda fog iyo mid dhow waxaana ay ahayd xaflad taariikhi ah iyadoo qoyska Xasaasi weli ay u socdaan maalmihii guusha iyo farxadda.